shacbiga ku dhaqan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay saadaga uga soo horjeesteen heshiiska saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ay gaadheen kaas oo ku saabsan in doorashada la qabto laguna galo sideedii hore taasi oo meesha ka saaraysa saami qaybsiga ay tabanayeen qaar ka tirsan gobolada Soomaaliland. haddaba gobolka Awdal oo kamid ah gobolada ka soo horjeestay heshiiska saddexda xisbi qaran ayaa waxay sheegeen inayna doorashada ka qayb galeen ayna rabin in 13 xildhibaan ay u matalaan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland. haddaba shacbiga ku dhaqan magaalada Boorame oo arintani ka hadlaya ayaa waxa daladoodii kamid ahaa Soomaaliland waxaan ku dhisnay bartan Boorame Sheekh Ali Joor baan ku dhisnay Sheekh Ali Joor baan ku dhisnay beesha dhexe waxaanu siinay 5 sano oo dib u dejin siinay 5 sano dib u dejinta waxay ka dhigteen 30 sano oo dib u dejin ay qaateen waxa weeyaan dhaqaalihii wadanka wasiiradii wax walba iyaga qaatay gabi Soomaaliland soo dhannayd iyaga isku xiriiriyay meel kaliya oo laga gala haba yaraatee way u diideen cid ilaahay soo dhex gasho way diideen waar waxa weeyaan Soomaaliland deedika un ma Soomaaliland gobolka Awdal baa jira goboladii bariga jira waxa weeyaan Soomaaliland kaliya un ma waxa weeyaan Soomaaliland la wadaleeyay qurux badan ayaa nagu rabnaa waxa weeyaan day taasiinaan fiici weeyday oo Soomaaliland qurux badan aad diideen daadir saddex gobol baa degtaan saddexdiina gobol doorashada ka qabsada anoo laba gobol iyo bar baan degnaa labada gobol iyo barkayaasan doorashada qabsanna kuwa bariguna labada gobol iyo barkooda ka qabsadaan yeeli waa wax wada qurux badan oo Soomaaliland wada qurux badan wada sameysano marka hadii aanay meeshu sinaan iyo cadaalad ahayn hortu mustaqbalku waa madow wax alle wax shaqeynayaan ma jirto kullay arintaasuna waxay keeni doontaa aniga ra'yi ahaantayda khilaaf weyn oo kullay gobolada soo dhax gala Soomaaliland marka waxaan leeyahay in cabashada la isku qiimeeyaa kullay fiicnaan lahayd oo wada jir bay qacmo ku gooyaan wax la isla eego sa haday tahay anuunba awoodda iska leh anuunba wax qabanaya aniguunba wax walba aniga uun haday tahay ya kullay aniga uun kullay anaaniyada waa lagu jabaa anigana waa lagu jabaa waxaan leeyahay anaga hadafkaygu hadaan nahay ree Awdal waa doorashada ma ogolin sinaan iyo cadaalad baan oganahay kullay waxaan leeyahay ree Awdal ka jawaabana warkooga cada bixiyaan marka wax duuduub anagu ma yeelayno doorashada ma galayno cidna ma qasbi karto gobol ma qasbi karaan annaga 10 kursi nooma qalmaan halka iyagu 40 kaliin 10 kursi iyagu waxaan dhaamin ya ma doonayna hadiina cadkayga nasiinay annagu waan garanayna cadkayga waxaan ku helayna ma garat ya marka annagu hadaan raawdalnahay adan dhalinyarada nahay ya mowqifkaygu waa gooni 40 ka waqaaday meesha joogtay inay matalaan annaga gobolkan Awdal tabashadiisu maanta walaalayaal ma iman inta 30 sanadoodba way soo jirtay waa la qancin kari waayay reer Awdal haday beesha dhixi reer Awdal qancin kari weyday ma ummadda kale Soomaaliyeed wax wada lahayn ka go'ayna qancin karaysa ma caalamka ay istiraafka ka raadinaysay iyo qancin karaysa reer Awdal oo u joogo oo diyaar u ah ay qancin laayeen taasi wata takalana waxa leeyahay xukuumadda maanta joogta tabashadani wax yar maahin waa la dhayarsanay waa waxoogii baan maqalaa waa sidoodii baan maqalaa sidaas socon mayso danteena maahin miiska wada hadalka la yimaado reer Awdal tabashadooda haddaad qabiil ku maamulaysiin iyo haddaad dawlad ku maamulaysiin ba loo soo noqdaan leeyahay madaxweyne Muuse Biixi baaq baan u dirayaa shalay toole madaxweyne ku xigeenka waa shirqoosheen gacmihiisa sare u taagteen intood labada gacmood qabateen baad sare u taagteen ma soconayso waxaasi madaxweyne ku xigeenku nama matalo madaxweyne ku xigeenku waa xisbiga kulmiyuu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenku waa shakhsi samaroon ka mid ah arinta masiirka maxaan ku dhahdaa dawlad maxaan ku dhahdaa saami qaybsi wuxuu yaalaa bulshada samaroon buu yaalaa bulshada ree Awdal buu yaalaa ma ogolin wana ogolaan doono mana soconayso gobolkana wax doorasho ka dhacaysa ma jirto dhagay far imika ba waan sheegnay gobolka Awdal hadaan nahay sida dhalinyartu u diidaan u diidnay annaga nama matalo heshiiska ay gaareen saddexda xisbi qaran runtii mana taabacsanin mana ogalin waxay saddex nin oo isku qabiil ay soo dhoodhoobeen hadii aan nahay beeraha darafyadana waxaan raalli ka nahay ilaa inta heshiis lagu gaarayo Soomaaliland la wada leeyahay ama la helayo Soomaaliland la wada leeyahay inaan diyaar u ahayn inaanu doorashada ku galno saami qaabsiga ay sheegayaan heshiiska ay gaareen saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ee lagu heshiiyay doorashada lagu galayo 2005
iyadoo beelaha darafyadu ay tirsanayaan saami qaybsi Soomaaliland waa la wada yahay laakiin waxa la doonayaa Soomaaliland loo wada dhan yahay haddii aan loo wada dhanayn oo beelaha darafyada aan tabashadoodii la tixgelin annagu haddaan nahay dhalinyarta gobolka Awdal kuma galayna doorashada sidii 2005 Sakariya Cabdi Sheekh Farax Sakariya Saxane telefishinka caalamiga ee Horyal TV magaalada Boorama